xubnaha komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta kulan la yeeshay guddi hoosaadka arrimaha gudaha difaaca ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland. Kulankaasi ayaa ahaa isxog waraysi waxaana gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Muuse Xasan Yuusuf uu ka warbixiyay qorshaha iyo howlaha ku talagal ee doorashooyinka soo socda, isagoo sheegay inay wax ka bedel ku sameeyeen qorshihii hore ee u qoondeeyeen inay ku qabtaan diiwaangelinta codbixiyaha, isagoo sheegay in qorshahaasi la wadaagi doonaan xisbiyada siyaasadda iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland golaha wakiilada Somaliland. haddaan warbixin yaro guud aanu idinka siino hawlihii markaan wadnay kolley dee muddo dheer baa isu keen dambeysay doorashada ka hor doorashadii madaxweynaha intii ka dambeysay kolley waxaanu sameynay post election review oo mar walba hawl la galaba in dib eegis lagu sameeyo hawsha la galay maxaa ka qabiya ahaa maxaa u baahan in la saxo si loogu tala galo operationada kale. waxaa jiray safar aan u baxnay oo iyaguna ahaa in kor loo qaado aqoonta iyo waxqabadka commissionka iyo agaasimayaasha. haddaan sanadkii u dambeeyay unaan ka soo qaado kolley waxaa ugu horeeyey kulan waxaan leeyahay safar aan u baxnay oo aanu ka helnay casuumaad rasmiya dalka Finland oo aanu ku tagnay halkaas aanu la kulannay wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda cadaaladda oo guddida doorashada ee dalkaas hoos yimaada, baarlamaanka dalka Finland. waxaan kaloo la kulannay golaha deegaanka ee weliba Soomaalidu u badan tahay magaalada Helsinki. waxaan kaloo la kulannay institution ama hay'ad la shaqeysa caalamka oo ka shaqeysa horumarinta dimuqraadiyadda khaasatan kuwa asxaabta badana. kulankaas si fiican noogu dhacay. markaan ka soo noqonayna kolley waxaan u gudagalay hawshii shaqada ahayd ee diiwaangelinta ahayd. sidoo ogsoonahay muddo kordhintii kadib qorshihii aanu soo bandhignay markii hore annaga noo asteysnaa ku saleysnayd in doorashadii 31 May ay waqtigeedii ku dhacdo wuu isbedelay. dabcan taas oo markaa sababtay in annaguna aanu qorshihii diiwaangelinta aanu dib u noqono. qorshahaas markaa iminkaanu gacanta ku haynaa. waxaanu la kulannay madaxweynaha intaanu safarka u bixin. waxaanu kala qaadanay inaanu qorshihii oo dhammaystiran aanu u geynayno annagoo marka hore danayaasha siyaasadda khaasatan 3 xisbi qaran iyo ciddii ay khusayso shaqada iyadoo idinkuna qayb ka tihiin aanu marka hore idinla wadaagayno qorshaha diiwaangelinta doorashada imika mudaysan 2028 ku mudaysan biidmillah. kolley warbixinta guud waa intaasuun. wixii su'aalaha iyo wixii faahfaahina diyaar baan u nahay. waxaa iyaduna jirtay mudane guddoomiye markii aanu ku dhawaaqnay go'aankii diiwaangelinta in xisbiyada xisbi ka mid uu hakiyay shaqa joojintii wada shaqaynta commissionka. dadaal dheer baanu ka galay sidii caadada ahayd. 3 xisbi qaranba waxay ku midaysan yihiin inaan ku shaqayno. marka taana waanu soo afjarnay biidmillah xisbiga ka waanu kulannay wiigii horaanu kulannay. 3 xisbina waanu yeednay. waxaanu ku wargelinay inaanu gacanta ku hayno diiwaangelinta iyo qorshaheedii aanu gacanta ku hayno oo la hawlgeliyo task force-kii xisbiyada matalayay. kolley intaasaa warbixinta guud aanu idin haynaa. waanu maanta idinla wadaagaynaa. wixii su'aalaana diyaar baanu nahay. wada shaqaynteena mar walba diyaar baanu nahay. aad baad mahadsantihiin. mudane guddoomiye commission waxaan weydiinayaa su'aasha koowaad aan weydiinaya waxa weeye marka hore waxaan idin sheegay xog yar oo ah inay guddidu hadda gacanta ku hayso xeerkii commissionka maadaama aan commissionku lahayn wax xeer ku aasaasan yahay jirin. inta badanna hay'ad haddaanay xeer lahaynna wax badan bay qabyo ka ahaanaysaa. horta waxaan ku wargelinaynaa inaan xeerkii gacanta ku hayno. stakeholderka ugu weyn inaad idinku ka tihiin talaabo kasta iyo wax kasta oo qaadayno inaanu la socodsiino. golaha wakiilada xeerarka uu sameeyo xeerarka ay xukuumadda ama hay'adaha kale dawladdu ay sameeyaan waxay kaga duwan tahay
inta badan maadaama anagu shacabkii matalno manihin dad intay xeerkan u soo qaataan inay yani iyagoon isku koobaan maadaama aad tihiin hay'adda xeerka lagu dhaqeeyo waxaan jecelnahay cidda ugu weyn ee la shaqeynayaan inaad idinku tihiin oo aad talo ku yeelataan oo aragti ku yeelataan taa horta waa idinka brief gareynayaa anigu dhowr qodob baan rabaa in halkan ka hadlo ah inta badan mushkiladaha jira waxaa ka mid ah diiwaangelin ma idin qorshaysan tahay imika inay diiwaangelintu noqoto mid furan oo inta badan waxaa ogtihiin waddankeena waxaa dhaawac iyo dhaqaale xumo iyo waqti badan kaga lumaa waxa weeye in la yiraahdo markastoo doorasho soo dhawaato waxaa la qabanayaa diiwaangelin oo imika tusaale ahaan oo kale haddii imika miyaan la samayn karaynin in 24 degmo doorasho ee waddanka ka jira inay furnaadaan oo dad shaqaalaha la geeyo oo idinka municipality-gu hay'ada dawladaha hoose ka wada shaqeysaan oo ay furnaato diiwaangelintu oo markay 6 bilood ma aha week ka hor ama 20 cisho ka hor ama bil ka hor la xidho ma idin qorshaysanta taasi waa su'aasheeda koowaad su'aasha labaad kale waxa weeye imika waxa wadaan qorshe diiwaangelineed tusaale ahaan haddii imika 2027 dhamaadkiisaba ay qabataan diiwaangelintii oo diiwaangelintii ay dhameysaan doorashaduna ay tahay 2028 ilmaha sanadka dambe qaan gaaraya ee xaq u leh idinku sanad ka hor diiwaangelintii aad sameyseen meel qofkaas xuquuqdiisa laftigiisa aan waayeen waa su'aasheeda labaad takalana waxa weeye bilgidawid waxa waqti badan ku lumay nooca diiwaangelin aynu qaadanayno nooca ay tahay oo saddexda xisbiba ay qolana meel joogtay qolana meel dhexe joogtay qolana ay meel fog joogtay oo kale imika diiwaangelinta aad qaadanaysaan haddayba dhacday inaad qabataan mid noocee bay noqonaysaa ma tii ka soo jeediyay bay noqonaysaa oo anu aan u arkay ta ugu saxsan inay tahay ma tii wadani baa qaadanaysaan ma tii kulmiye qaadanaysaan wadkaana fiican nooca diiwaangelin aad qaadanaysaan noocee buu yahay inaasan kaga baxayaan aad iyo aad baad mahadsan tahay arrinta wargelinta in xeerkii aasaaska commissionka aad gacanta ku haysaan oo soo dhaweynayna anagu ka commission ahaan waa hawl aanu in badan batabaynay marka waxaanu idinkula dardaarmaynaa in de roolka ugu weyn uu commissionku ka qaato uu noqdo commission qaran oo de mustaqbalka taraya marka hawsha diyaar baan u nahay waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waana de shaqadiinii aad xaq u lahaydeen marka taasi waa qodobka labaad arrinta diiwaangelinta waxaan u deynayaa commissioner Faadumo arrinta inay ka jawaabto hawsha diiwaangelinta iyo qorshaheeda shirgudoonka arrimaha gudaha iyo xubnaha aad baan u salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulley de baryahanba kulamadayada iyo stakeholderska aan la kulmaynaba waa arkayseen kulanka madaxweynahana de qorshe la yimaada buu ahaa stakeholderska waa la kulannay de la-aantoodna ma shaqayn karno si aan sidii hore oo kale noogu dhicin waa ina dee sidaa gudoomiyuhu sheegay task forceka ay dee qorshaha nagula jiraan diiwaangelinta nooca cusub ee horta iminka aanu qaadanayna waa mid fresh laakiin weli islaama aanu qaadan oo qorshihii baanu gacanta ku haynaa ma mid furnaanaysaa ma mid maasaa weli arrintaa meel la islama dhigin waa iminkun bay bilow tahay maalintii dhaweyd markii aanu dee isla kulannay stakeholderska dee fasaxanuun baa ku xigay shalay marka nooca aanu isla qaadanaynaa waa weli waa gacantaa lagu hayaa laakiin nooca diiwaangelintu waa nooc fresh from scratch cusub markay noo dhammaato discussionka iyo nooca iyo qorshaha iyo blanka dugda ilaa qorshahan bay ka dhalanaysaa qorshahan bay ka dhalanaysaa marka dadka deegaanka qaan gaarin la baroodo iyagu de waxay sabab isticmaal muusiga qaad adigu kale wareego warba xidinta commission ka hadlaysa marka qorshaha weli gacanta lagu haynaa budgetkeedii timeline-keedii hawlaheedii marka waa mid dee danayaashuna ay ka qayb noqonayaan biidnillah marka xog aan nimanka danayaasha loo gudbinay aan ahayn inaan qorshihii wadayno ma jirto waxaan jeclaan lahay xogtaan idinkeedii laftigiina idinla aan idiin sheegnaa
إن قرشها أنا كورن بإذن الله.